بسم الله الرحمن الرحيم صاحب يال meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkayga idiin soo gaaray waxaan hawada idinka leeyahay maalin wanaagsan iyo xilli waliba ku tahay ha ku wanaagsanaado barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay suuq kala iibsiga laga qoray 24 saac la soo dhaafay kulmadii saaxiibtinimada ahaa ee laga ciyaaray isku diyaarinta pre-seasonka iyo waxyaabihii laga yiri warbixinada ciyaaraha ugu muhiimsan ee maanta haddii aynu ku bilowno kooxda Arsenal ayaa weli ku kulmaysanaysa suuqyada kala iibsiga ee xagaagan 2026-27 isku diyaarinteeda macalinka reer Spain ee Mikel Arteta ayaa weli ku guda jira dib u dhiska xoogan oo ku wada kooxda ka arrimiso Villa Emirates Stadium ee Gunners iminkana waxay raadaarkii si toos ah usoo qabteen xiddiga reer Brazil ee Bruno Guimaraes kaasi oo heshiis 5 sano ah la gaaray kooxda ka arrimiso Villa Emirates Stadium xiddigan ayaa kasoo tagi doona garoonka Stadio James Park ee kooxda Newcastle United wuxuuna si rasmi ah ugu soo biiri doonaa maalintii Isniinta isla markaana tijaabada caafimaad u mari doona kooxda ka dhinsan London si kastaba ha ahaatee Mikel Arteta ayaa dib u dhis xoogan ku wada kooxdiisa wuxuuna diiradda saaraya xil ciyaareedka soo socda ku guuleysiga marka loo eego UEFA Champions League oo xil ciyaareedkii la soo dhaafay si aan wanaagsaneyn ay kaga baxeen balse iminkana wuxuu diiradda saaraya mar kale maamulkana ku cadaadinaya in kooxda dib u dhis xoogan loogu sameeyo xiddigaha qaar wuu fasaxay kuwa qaarna uu kusoo biiriyay kooxda waxaa ka mid ah xiddiga lagu magacaabo Toseles oo asagana waa cadarban ka dhigay kulankii 4-1 ay ku adkaadeen kulankoodii isku diyaarinta balse kooxda Arsenal weli waxaa imaan kara xiddiga badan kuwaas oo xoojin kara safka uu hogaamiyo macallin Mikel Arteta xitaa waxaa daaha gadaashiisa ku jira xiddiga reer Brazil ee Vinicius Junior kaasi oo asagana weli wada hadal rasmi ah aysan la galin kooxda Real Madrid ayaa doonaysa xiddigan inay mushaar kordhin u sameyso ilaa 2 milyan iminka wuxuu qaataa 18 milyan waxay doonayaan inay ugu daraan 2 milyan oo extra ah sanadkiina uu ku qaato 20 milyan balse xiddigan reer Brazil ayaa ka cagajiidaya mushaaraadkaas ay usoo bandhigeen maamulka kooxda Real Madrid ku aadan inuu sii joogo garoonka Santiago Bernabeu wuxuu doonayaa haddii uu sii joogayo garoonka Santiago Bernabeu in la siiyo 30 milyan sanadkii Arsenal waxay cadeysay hadafkeeda ku aadan xiddigani inay hesho isla markaana ay kusoo darto safkooda waxayna si sax ah wararka qaar soo baxay sheegayaan in xiddigan heshiis uu la gaaray kooxda Arsenal balse lama xaqiijin haddii la xaqiijin insha Allah dib ay idin soo wadaagi doonaan dhinaca kale kooxda Newcastle United ayaa ayadana dib u habeen xoogan gali doonta kadib bixitaankii Alexander Isak Gordon Bruno Guimaraes oo adal xiriirina kooxda Arsenal ee xiddiga hal oo asagana kusii jeeda garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United balse waxaa imaan kara macallin lagu magacaabo Matheus Gisela kaasi oo dib u dhis ku sameyn kara kooxda ka arrimiso garoonka Stadio James Park Eddie Howe bixitaankiisii rajo wanaagsan umaysan ahayn kooxda Newcastle United iyo taageerayaasheeda furfur badan ayaa galay balse waxaa la filayaa in dib kooxdan loo soo nooleeyo inkasta isteejyadii ugu muhiimsanaa ay kasoo muuqan jireen ay kasoo muuqan kareen UEFA Champions League ayay heleen xil ciyaareedkii la soo dhaafay balse xil ciyaareedkani ma soo muuqan doonaan waqtigii waayaha ee inoo sheegi doonaan dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa kulankoodii ugu horeeyay Enzo Maresca ciyaaray inkastoo 1-1 ay la galeen kooxda Inter Milano looga adkaaday Real balse bandhiga uu sameeyay macallin Enzo Maresca ayaa indhaha caalamka iyo taageerayaasha kooxda Manchester City soo jiitay dhammaan bilow ilaa iyo dhamaad waxay ahaayeen weerar kooxda Manchester City Savinho inkastoo loo badanay inuu aado dhankan kooxda Tottenham Hotspur balse bandhigiisa cajiib ayuu ahaa Philip Foden Rangers iyo xiddiga lagu magacaabo Semenyo iyo Jeremy Doku balse waa laga adkaaday Real ayaa lagu adkaaday kulankoodii ugu horeeyay ee isku diyaarinta xil ciyaareedka xiddiga reer Portugal ee Bruno Guimaraes isla markaana qadka dhex ugu ciyaara kooxda Manchester United ayaa noqday xiddiga ugu abuurista badan xil ciyaareedadii la soo dhaafay afartii xil ciyaareed la soo dhaaftay xiddig ka badan abuurista kubadaha la dusiyo isla markaana goolka caawin noqon kara ama dhashan kara xiddig ka badan ma jiro xiddigani wuxuu noqday laf dhabarta ugu muhiimsan ee kooxda Manchester United isla markaana uu hogaamiyo macallin Mikel Carrick xiddigani ayaa xilliyadii u dambeeyay ciyaaraya dhankan iyo booska 8aad balse fursadihiisa ugu badan waxay yimaadaan marka laga ciyaarsiyo lambarka 7aad Yuri Tielemans oo asagana kusoo biiray tababarka kooxda Manchester United waxay taasi cadeynaysaa fursadna ay siinaysaa xiddigani inuu sii xoojiyo dhalintiisa iyo caawintiisa ku aadan kubadda cagta marka laga ciyaarsiyo lambarka 7aad kooxda Inter Miami 2-2 ayay gashay balse waxyaabaha cajiibka ah ayaa waxay tahay in Lionel Andres Messi Pochettino iyo xiddiga lagu magacaabo Casemiro si wada jir ah ugu ciyaareen kooxda Inter Miami
haddii hore aan uga qaban jirnay Brazil iyo Argentina inay isaga hor yimaadaan Casemiro iyo Messi, Real Madrid iyo Barcelona iminkana isku koox ayay yihiin oo waxay ka wada ciyaarayaan ama ay matalayaan maaliyadda kooxda Inter Miami, waxayna galeen barbaro 2-2 ah inkastoo gool iska dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Casemiro. Dhegeystayaal saaxiibayaal, intaan waxaan ku eg barnaamijkeeni maanta ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waxay ahaayeen warbixinada ugu muhiimsan ee aan kusoo qaadan karnay marka loo eego kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaray. Haddii aan markale idin xasuusiyo, kooxda Inter Milano iyo kooxda Manchester City ayaa ciyaaray kulan xiiso badan. Kulankan wuxuu kusoo ilaaday barbara 1-1 rigooreyaal waxaa ku adkaatay kooxda Internazionale. Manchester United-na 2-1 waxay kaga adkaatay kooxda Atletico de Madrid. Bryan Mbeumo ayaa dhaliyay 2 gool, midna wuxuu ahaa gool kulaata. Dhinaca kale, kooxda lagu magacaabo Bayer Leverkusen 3-1 waxay kaga adkaatay kooxda lagu magacaabo Frosty Western. Waxay ahaayeen kulamada ugu xiisaha badan, halka kooxda Arsenal 4-1 ay kaga adkaatay kooxda lagu magacaabo Girona. intaa kulan kale ama barnaamij kale dib isugu imaan doono. Dhegeystayaal saaxiibayaal, waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan.